Kool keliya oo ay soo wacday gabadh yar oo 17 jir ah ayaa kalifay in adduunka oo dhan ogaado waxa dhacay iyo waxa ay xaqiiqadu tahay. Isku soo noqod wanaagsan. Qisadan ayaa ah mid ka duwan qisooyinkii hore. Fadlan hadday tahay markii ugu horeysay aadna soo booqato, waxaan rajeynayaa inaad subscribe noo saarto. Hadday qisadani ku cajabisana videoga like saar. Haddaad doonaysid inaad wax talo ah noo soo gudbisidna commentiga ayaad noogu reebi kartaa. Haddaba aynu eegno sida ay ku bilaabatay qisadani. Qoys Amerikaan ah oo ka kooban 2 gabdhood iyo wiil, magacyadooduna waa Louise iyo Teresa iyo Bailey. Hooyada carruurtan dhashay waxay ahayd hooyo aad u xun. Carruurtan ayaa waxa ay la kulmi jireen xadgudubyo aad u xunxun oo uu ugu xumaa kufsi ay kala kulmi jireen awoowahoodii dhalay hooyadood. Markii ay hooyadood ogaatay waxa uu ku sameynayaa aabaheed gabdhaheeda, waxaan u malaynayay inay aad uga xanaaqi doonto, laakiin taasi may dhicin. Hooyadood wuxuu la noqday wax dabiici ah ama dhici kara, waxayna noqotay mid ku dhiirigelisa gabdhaheeda inay waxani caadi yihiin, ayna dhacdo mararka qaar. Intaa waxa sii dheer, indha adayga aabaheed wuxuu gabadhiisa ku khasbi jiray inay ugu keento gabdhaheeda yaryar gurigiisa maalin kasta. Gabdhuhu aad ayay u biqi jireen. Hooyadoodna waxay ku odhan jireen, hooyo ha noo geyn awoowe, ma doonayno inaan u tagno. Hooyadoodna waxay ku odhan jirtay, hooyo haddaanan idiin geyn awoowe ma helayno lacag, anna ma awoodo inaan idiin iibiyo cunto iyo waxaad ku noolaataan. Waadna garan kartaan carruur sidaa lagu yidhi. Waxay dhaaftay maalmo iyo sannado iyagoo weli ku sugan isla xaaladii. Louise waxay isbarteen David. Louise waxay jirtay 15 sano, Davidna 20 sano. David waxa uu ku noolaa nolol aad u qurux badan oo heer sare ah, khaasatan wuxuu ahaa injineer. Mushaharkiisuna wuxuu ahaa mid aad u fiican. Markii ay Louise 16 jirsatay, waxay go'aansatay inay la baxsato David si ay uga takhalusto noloshan adag ee aadka u foosha xun. Markii ay isguursadeen, waxa ay ku noolaayeen Las Vegas. Markii ay kasoo wareegtay 15 sano guurkoodii, waxay dhaleen 8 carruur ah. Iyaga iyo 8dooda carruur ahi waxay markasta u dalxiisi jireen meel kasta oo ay jeclaadaan xilliyada fasaxyada, waxayna soo dhigi jireen sawiradooda Facebooka. Markaad aragtid sawirada qoyskan, waxaad is odhanaysaa maasha Allah, waa qoys aad u qurux badan, waadna jeclaanaysaa sida ay u faraxsan yihiin. Heer ay walaasheed Teresa iyo walaalkeed Bailey ku yidhaahdaan, waxaad samaysatay qoys aad u qurux badan, meel kastana waad u dalxiis tagtaan. Si kedis ah waxay go'aansadeen inay ka fogaadaan qoysaskooda iyo adduunka oo dhan. Nasiib darro, David wuxuu noqday mid hantidiisa oo dhan khasaara. Mana jiro dalxiis dambe oo loo baxayaa. Xataa carruurtii waxay noqdeen kuwo wax ku barta guriga, iskuulkiina waa laga joojiyey. Maxay reerku uga saareen carruurta iskuulka, uguna oggolaadeen inay wax ku bartaan guriga? Toloma waxay u maleeyeen in waxbarashada gurigu ka fiican tahay ta iskuulka, mise si ay uga fogeeyaan dadka, si aanay carruurtu ugu sheegin waxyaabaha khaaska ee ka dhacaya guriga gudihiisa. Xataa dhaqankii carruurtooda kula dhaqmayeen wuxuu noqday mid aad isku bedelay. Waxay ku tarbiyayeen carruurtooda tarbiyad aad u adag, sidii ciidan la tababarayo, timaha oo loo goynayo si ka duwan sida dadka. Carruurta oo markasta xidhanayay dhar isku mid ah sida uniformka ama dress isku mid ah. Haddaba taariikhdu markay ahayd 2000, David iyo xaaskiisu waxay go'aansadeen inay u guuraan Rio Vista, Texas. Meeshani waxay ahayd meel miyi oo kale ah, guryuhuna aad ayay u kala fog yihiin, ma jiro qoys kale u gudbaya. Beerta guriga hortiisa ku taala ayaa waxay ahayd mid aad u weyn, si ay uga nastaan faragelinta ehelkooda iyo jaarka, iyo inay cid kale arkaan. Markii ay degeen gurigii, carruurtii waxay bilaabeen inay la ciyaaraan carruurta jaarka. Carruurtii jaarku waxay hooyooyinkood u sheegeen in carruurtani ka duwan yihiin carruuraha kale. Dunta dharkoodu ka samaysan yahay, cidiyaha, timaha sida loogu jaray, urta ka soo baxaysa aad bay u darnayd, gacmahooda wasakh. Xataa walaasheed markay Skype-ka ka soo wacdo, waxay ku odhan jirtay, carruurtaadu maxay isla bedelaan, maxay u caatoobeen, midabkoodu muxuu madow u yahay, maxaa idin helay?
balse Louise way isdhaafin jirtay walaasheed cudurdaarna way u samayn jirtay si ay u aamusiso. Markay kasoo wareegtay maalmo, Teresa waxay soo wacday walaasheed si ay u aragto carruurtii walaasheed dhashay, laakiin Louise ma furin kaamirada, keliya kool bay kula hadashay. Markii ay u sheegtay inay doonayso inay aragto iyadii carruurtana, waxay u sheegtay in ay mashquulsan tahay. Maalin maalmaha ka mid a jaarkooda ayaa aragtay carruurteedii oo la ciyaaraysa carruurtii David. Aad ayay u xanaaqday, waxayna ku tiri, mar dambe idinma arki karo idinkoo carruurta la ciyaaraya. Carruurteeda ayay u baqaysay sababtoo ah carruurtani waa carruur muuqaal ahaan ka duwan carruuraha kale. Si kedisa ayaa waxay u aragtay mid ka mid a carruurta David inay gacmaheedu yihiin buluug sidii ay sidato gloves. Waxayna u malaysay inay gloves sidato. Way weydiisay, waxayna ku tiri, ma gloves ayaad sidataa? Gabadhii yareed waxay ku jawaabtay, haddii aad maalin walba maydhid gacmahaaga, waxaad khasaaraynaysaa biyo badan. Balse hadalkeeda waxba kama ay fahmin. Waxay kasoo wareegtay 10 sano, waxayna noqdeen 12 carruura. 8 waxa ku kordhay 4 carruura. Maalin maalmaha ka mid ah waxa baxsatay mid ka mid a gabdhaha David, laakiin waxa soo qabtay mid ka mid a jaarkooda kuna soo ceshay gurigii ehelkeeda. Intuu soo waday dariiqa kama uu fahmin waxay u baxsatay halkay ku socoto waxa ku dhacay, sababtoo ah may garanayn siday dadka ula hadasho. Gabadhani way ku yareed intay la xidhiidhay dadka, waxayna wax ku baratay guriga. 2010kii wax walbi way caddaadeen. Waxay go'aansadeen in ay u soo guuraan California. Markay halkaa degeen, Louise waxay noqotay 47 sano. welina waa ay dhalaysaa. Waxay dhashay gabadhii 13aad, carruurtiina waxay noqotay 13 qof. 2018kii waxaa dhacay wicitaankii ahaa inuu mar hore dhaco. Gurigana waxaa lagu soo eedeeyey inay jiraan 2 qof oo geystay la dhaqankii ugu xumaa ee bini'aadan loo geystay. Gabadh jirta 17 sano ayaa ka baxsatay gurigii, waxayna wacday booliiska. Waxayna u sheegtay in iyada iyo 12 walaalaheedii ay ku nool yihiin nololtii ugu xumayd, waxaana sababay waalidkood. Waxay u sheegtay inay isku dayday inay baxsato 2 sano ka hor, laakiin nasiib darro ay u suurtageli weyday, waayo waxay ku xidhnaayeen silsilado aad u dheer. Markii hore waxa lagu xidhi jiray xadhig, laakiin markii ay arkeen dhaqdhaqaaqa carruurtooda, waxay bilaabeen inay ku xidhaan silsilado aad u dheer oo ay guriga ku dhex socon karaan. Maalinkii oo dhan waxay cuni jireen hal waqti, halkaa marna kama ay dhergi jirin. Markay dhammaystaan halka mar, waxay ku noqon jireen qolaalkooda, sanadkiina hal mar ayay qubaysan jireen. Xidhiidhna lamay lahayn, qofna cidima soo booqan jirin, qoys, jaar, xataa asxaab. Booliiskii iyo dambi baarayaashii waxay aadeen dhinaca guriga. Markii ay galeen guriga, waxay arkeen waxyaalo aad u daran. Urku wuxuu ahaa mid daran. Waxa u soo uray sidii guriga inuu ku baktiyay xayawaan. Waxay ogaadeen in bisad ku baktiday mar hore, laakiin aan la qaadin. Carruurta saarneyd furaashyada waxa muuqday lafahooda cunno xumo darteed. Jidhkooduna wuxuu ahaa mid aad u madow wasakh darteed. Furaashyada ay ku jiifeen waxay ahaayeen kuwo aad wasakh u ah oo xataa in laga cunay. Waxa dhici karta inay cuneen carruurtu gaajo darteed. Guriga waxa ka soo urayay ur aad u daran. Meel kasta aad eegtaana waxay ahayd wasakh. Wiilkooda ugu weyni wuxuu ahaa 18 jir, miisaankiisuna wuxuu ahaa 37. Gabadha booliiska la soo hadashay waxay u hadlaysay sidii ilmo yar oo fasalka 1 ama 2 ah. Booliisku markay la soo hadashay waxay weydiiyeen da'deeda, waxayna u sheegtay inay jirto 17 sano. Ma rumaysanaysaan? Codkeedu wuxuu u ekaa ilmo yar oo 9 sano jira. Carruurtii waxaa loo fidiyey daryeel caafimaad. Jaarkii deganaa gurigii ku yaalay baadiyihii ay ka soo guureen qoyska David ayaa go'aansaday in ay soo eegaan gurigii ay ka guureen David iyo qoyskiisu. Markii ay ka arkeen social media-ha, isla markaana waxay arkeen gurigii oo wada qafilan, meel kasta kabadhada, talaagada wax lagu qaboojiyo, meel kasta oo guriga ka mid ahna waxa ka soo urayay ur aad u daran. Jiir aad u badanna waa uu joogay. Ugu dambeyntii waxa maxkamadda la soo taagay
David iyo Louis oo ah hooyadii iyo aabihii dhalay carruurtan, isla markaana David waxa uu sheegay in aanu islahayn carruurtiisa xumay, balse uu jeclaa inuu isagu u tarbiyadaysto tarbiyad khaas u ah, halka ay Louisna sheegtay inay carruurteeda aad u jeceshahay, isla markaana ka codsatay carruurteeda inay saamaxaan, markastana tiri Ilaahay baan idin bari jiray inaanu wax dhib ah idin tusin, balse carruurtii ayaa sheegay in waxa keliya ay u sameeyeen ay tahay inay jeclaysiiyeen diinta iyo Ilaahay. Qoyskani waxay ahaayeen qoys Kirishtaan ah, sidaa darteed carruurteeda waxay jeclaysiiyeen oo ku ababiyeen diinta Kiristaanka. Carruurtii waxaa qaadatay dowladda, hooyadii iyo aabihiina waxaa lagu xukumay 25 sano xadhiga. Waan rajaynaya inay qisadani ku cajabiso. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir channelkana subscribe noo saar. Subscribe-kaaga waxay noo tahay dhiirigelin. Haddii aad qisadan ka heshana videoga like saar. Haddaad jeceshahay wax kale inaad noo soo gudbisina commentiga noogu reeb. Intaan qisadan qisa lamida ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.